waa maalin taariikhi oo xusuus mudan ay ku jiraan ganacsatada ku nool dalkan Yemen gaar ahaan gobolka Xadaramood kadib markii uu soo gaaray safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalkan Yemen Mudane Cabdullaahi Xashuuriye oo booqasho ku yimid gobolka Xadaramood waa soo dhaweyntii safiirka iyo ganacsatada oo soo diyaarisay qado sharaf heerka u sareyso iyo kaftan oo goobta ka socday wuxuu ahaa mid taariikhi ah khudbadaha ku saleysan ka sheekeynta qabadka safiirka u qabtay ganacsatada iyo miradhalaha laga gaaray iyo muhiimadda ugu yimid booqashada waxayna ku bilowdeen sidaan anu maleynaya xafladu ay fidiyeen ganacsatada reer Makalla anu fidiyeen soo dhaweynta safiirka Soomaaliyeed oo u fadhiya dalka Yemen Cabdullaahi Xashuuriye saacad safiir soo dhawow ganacsatada waa ku dhayihiin konton qof baa kula joogta sidaan qiyaasta hayno intaa in la eg iyo inay soo wakiilatana way jiraan ardaydiina waa joogaan guddigii jaaliyadda oo qaxootigana waa joogaan mahad ballaaran baan u jeedinayaa qabanqaabayaashii barnaamijkan iyo ganacsatadii soo dalqaatay soo dhaweyntaada intaa kadib waxaan guda galaynaa barnaamijkeena qaybo badan ka kooban dhinac khudbadeed iyo wixii su-aalaada ama afkaara oo aad qabtaan inaad la qaybsataan safiirka ama mas-uulka Soomaaliyeed ee diblomaasiyiinta Soomaaliya ee nagala jooga xukuumadda hadda jidha mar labaad iyo mar saddexaad waa u mahad celinayaa ganacsatada aniga sharmarka ka ahaan waxaan rabaa barnaamijka inaan ku furanno ayadaha qur-aanka ah maadaama aynu dad muslimiina nahay waxaan u yeerayaa Abdulqaadir Cabdiraxmaan Quurshe falyatafadal mashkuuran insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نوفريا وبلغنا كلمته تجارته وهوريو أبشر حسن يوسف أبشر بسوده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مانتي وان السلام يا سفيرك كان عسلتها guddiga jaaliyadda guddiga qaxootiga guddiga odayaasha ganacsatada dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa barakaatuhu quraanka waxaan qadadan maanta lagu casumay safiirka Soomaaliya oo ayaantan nala joogay asbuuc meelaha raaligelin baan ka bixinaynaa xilliga adag uu ku soo aaday oo ay tahay waqti khaliifa ganacsatadii maqan tahay iyo iyadu eed lagu jiray safiirka aniga asbuuc uu joogay waxaad joogina dad badan oo qaxootiyada iyo waxaas uu la kulmay inaga ganacsatadeena dib uu u dhigay tan labaad annaga habeen hore ayaan safiirku ii yeeray wuxuuna igu yeeray inuu la kulmaayo maxaafadkiina si degdeg bay xaaladdu ahayd 4 nin 5 nin baan isku helay 2 nin baan ku raacnay teedii meesha joogtay waxaan u gudbinay safiirka waxay ahaayeen safiirkaan u daynaya isagaa la kulmay duqe macaan ku sheegay barasaabkii gobolka annaguna waa la soconaa ganacsata ahaana hadda dambe waxay tahay xaaladdu waxaa maanta la ina casbay inay saragtaaniin
safiirkii Soomaaliya. waxaan u marinayaa safiirro badan ayaan la kulanay. safiirradaas waxa weeye safiirro aan heshiinin ma ahayn. maanta waxaan u marinayaa safiir dhalinyaro ah iyo dowlad cusub iyo dowlad isbedel doona baa inoo timi. safiirkan anagu si fiican baan isku wareysanay. waxa haray warkiinii safiir ganacsatadii Soomaaliya ee joogtay magaalada gobolka Xadarmood, magaalada Muqdisho isku xidha Soomaaliya oo dhan siiba koonfurta Soomaaliya baa intaa ku fadhida in ka maqan iyo in xagaa baxday oo jidha waliba u badan qoladii kalluumaysatada. laakiin dadkii matalaha way joogaaniin waxay ka hadleeyaanina waxa waaye iyagii baa jooga. annaga horaan soo aragnay safiirkana waxyaalo badan baan soo dhamaysanay. wuxuu qabtana waa taan nii sheegay xalayto ganacsatada qaarkeed aan is aragnay. qabadku qabtana waa wax jaraa'idka lagu soo qoraa ka akhrisateen. waxna berru qaban doonaayo oo meesha la yidhaahdo maxaafadkii waxay ku ballameen berri in dadkii aan ka cabanaynay waxyaalahaan ka cabanaynay. waliba safiirku markii loo ballan qaaday wuxuu ku yidhi waa inaan dhahay ku arkaa saan berri wuxuu qabsoomin. annaguna waxaan ka dalbanay mudiiradii kusaysay ganacsigeennu sida mudiirka xanaanada xoolaha, mudiirka jamaaruga, mudiirka miinada iyo mudiirka hijra wajawaasaad. intaas baa arrintoodii waa hirgashay. anugu ma aqrin laakiin jaraa'idada lagu soo qoray baa la yidhi. berrina waxaa loo ballansan yahay in qoladii maca balasaabkii gobolka iyo ganacsatadii iyo nimankii ku shaqo lahaa mudiirada in safiirku ka dhegeysto wuxuu inoo qabanaya waxaynu ka cabanaynay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بدل بعد السلام يا رجال ماشي والله بنيجي خاص هنا سبيك عصب يبيني أطبانا وأمانيا وناك بدل إلى شيء يعني معناها ودرب مسلمي وبلاد الوجود أطبانا وأمانيا markii ugu horeysa horta safiirka waa hambalyeynaya. waxaan leeyahay hambali magacaabista la soo magacaabay oo loo soo magacaabay inuu dalkeeda u noqdo jiri. kelmaddu Soomaaliya safiir kelmadda la waa kelmad Iiraan oo asalkeedu waa Iiraan. laakiin inaga af Soomaali waa danjire loo soo magacaabay dalka u fadhiya. waxaad u timi dadkaaga, waxaa u timi shacabkaaga, waxaa u timi saaxiibada. marna ku qaloonamaysa mana tegi doontid insha Allah tacaala. halka ka aydan ka matalaysaa oo aad uga tahay matale ummaddeena ballaaran oo ku nool oo wax kasta taajirkiina oo ardaygiina oo qofkii qaxootiga ahaa oo qofkii dhibaataysnaay oo qofkii hadii Ilaahay u huriyaan waxba qabsan karin oo qofkii dheersanaay oo qof wax kasta ugu horeyn waxaan salaamayaa safiirka cusub. waxaan u malaynayaa safiirku dee inaguna ka cusub yahay hadda kulley dee muddo xilka wuu hayay laakiin hadda inaguna ka cusub yahay. aada iyo aad baan u salaamayaa. waxaan kaloo salaamayaa iyada oo ganacsatada odayaasha dhammaantood kale annaga inoo taallaa oo dee ama jaaliyad ha ahaato ama guddi ganacsato ha ahaato inaad iskaaga qaabilsiisid oo iskaaga fahamsiisid qolada gobolka ilaa iyo barasaab ilaa iyo qaa'idka askarta ugu sarreysa aan isfahamno horta ma waxaanu nahay oo waxaas maalinta meesha joogtaa waxay u qaybsan tahay waxay tahay marka hore inaad iskaaga fahamsiisid. taasaan u baahan nahay. wixii dambana safir waa lagu ogaanaysaa oo waxa weeye annagaa markaa howlaha iyaga dad hawl qabsan kari waayo ma nihin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كو حرم هالعلم هيا dadki xafladda soo qabanqaabiyey dadkii igu soo dhaweeyey iguna dhiirigeliyey in aan meeshan imaado kala ayaan uga mahadcelinayaa. dhammaan adinkana intiina soo xaaladda idinkaga mahadcelinayaa. duwaan joogay maalmaan joogay inkastoo aanan horay idinkala socdin laakiin adinkana waa ay ogeydeen anna waa idin waay. intii hore waxaan ku mashquulsanaa shaqooyin hoose oo ahaa dadkii jaaliyadda rootiga iyo arrimahaas aan ku mashquulsanaa.
markii ayagii aan isu soo fahmnayna waxaan sugayay inaan la kulmo xaafidka markii la ii sheegay ninkii ritual la kulmaysaa habeen hore waxaan soo wacay sharmaarkaan watay waxaan u baahanahay inaan la kulmo ganacsatada waa loo yeeray waa ay wada hadleen aa isu soo xil saaray waa la iibi runtii waa si fiican baan iskula fakurnay waxa aan ka wada hadlayna waxay danta ganacsatada iyo danta jaaliyadda Soomaaliyeed ee halkan ku nool labadaba waa ka wada iyo sidii aan u wajihi lahayn gobolaha oo arrimihii dhibka ugu weyn haystay Soomaalida meeshaan aan ku wada qaban runtiina hadal dheer kadib iyo geesgaraac badan oo lagu sameeyey maasha allah waa ku guulaysan kollayna markii meel la isu yimaado waxaa wanaagsan in si fiican loo wada laakiin wada hadalku si kasta ha gaaro inaan meesha lagu kala tegin ayadoon xal la gaarin shalay meeshii markaan tagnay oo aan wada hadalnay amuurihii aan ka hadalnay waxaa ugu badnaa markii dambe arrimaha tijaarta sida xoolaha kalluunka xoolaha markii la keeno dekeda dhibka ka jira ee marka markuu soo xirta iska tegaya leeyaha ka furta dad xoolihii meesha ku dhimanayaan cidda loo raacanayo in canshuurtiina laga dhigo in maxkamna la siiyo waxyaabo badan baa kaa runtiina wixii aan ka wada hadalnay badankooda waa magacayga waxaa la yidhaahaa maxamed jaamac cali ganacsatada gobolkan xadarmood ee dalka Yemen ayaan ka mid ahay waxaan aad ugu faraxsanahay safiirka oo noo yimi la kulmay dhalinyaradii ganacsatadii muxaafidkii magaalada danaha Soomaalida ka hadlayay waa safiirkii u horeeya oo yimaada booqasho noogu yimaada gobolkan xadarmood aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana la shaqaynaynaa Soomaalidana waxaan leeyahay walaalayaalow la shaqeeya dawladdiina iyo dadka matala iyo safiiradiina aad baan sharafteena kor ugu qaadaysaa ayaan jooga magaalada kana mid ah ganacsatada ka ganacsata aad iyo aad ayaan faraxsanahay xafladan maanta qiimaha badan lagu soo dhaweeyay safiirkii Soomaaliyeed mudane Shooriye aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shaqada uu qabtay waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad uga shaqeynaynaa magacayga Axmed Maxamed Xaaj Faarax maanta halkan waxaan ku soo dhaweynay safiirkii Yemen Soomaaliya u fadhiyay oo noogu yimid gobolka Xadramood magaalada Maqalla maanta saasaan xafladan ugu soo dhaweynay waxaan wada hadalnay arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha qaxootiga arrimaha ganacsiga waxyaabo badan oo ku saabsan arrimaha Soomaalida aad baan isugu afgaranay safiirkana waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay safiir soo dhawow waxaad leedahay nasiib wanaagsan dawlad dadkoo dhan taageersan yahay waad safiir u tahay waana ku soo dhaweynaynaa dawladdana waa taageersannahay adigana waa ku soo dhaweynaynaa khayr baan ku rajaynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa magacayga waa Bashiir Cali Cumar Maxamuud guddiga kula ayay safiirkii ama qabtay wax fiican oo wanaagsan ayuu qabtay xafladda ayaan qabanay uu mahadsan yahay isaga iyo wixii la jira socotay iyo wixii qaaliyaasha aad ayuu mahadsan yihiin berina waxaan ku ballansannahay insha allah inaan dekeda iyo muxaafidka iyo dekeda iyo wixii dhiman howlaha aan qabanno insha allah aniga waxaan ka mid ahay odayaaqolada dekeda maamulka dekeda ka shaqeysa xoolo dejinta iyo sida safarada halkaa u jooga ahay waxaa weeye marka